adigu ma tahay qof dalkii hooyo tagayo holiday u socda muhiimad intee leedahay ku leedahay inaad ubadkaaga dhulkii hooyo soo tustid qayb weyn ayay waxay ka qaadanaysaa horumarka iyo nabadgelyada iyo waliba kobcinta dhaqaalaha ubadkuna waxay ka soo helayaan saamayn aan meelo kale adduunka aysan ka helaynin markay dadkooda iyo dhulkoodii ay tagaan erayada af Soomaaliga dhawooda ku soo duulaya aysan horay u maqli jirin dhaqanka qusuuban diinta iyo wanaagga halka ka socda meeshay doonto dhulkii hooyaha ka ahaatay soo dhaweeyo Maxamed Cusmaan oo asagoo marti barnaamijka caawigu ah aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo Maxamed soo dhawow diyaarad sad ku ogaateen inay arintan fiisaha ay shuruud ay tahay carruurta Ingiriiska loo Soomaaliya runtii walaashii waxay bixisay maalinta Isniinta axadii ayay arintan bilaabatay si dhawaaq sheeka ay noo soo gaartay bana isdheen wax oo reality way laakiin markii aan Isniintii tagnay oo waqti hore ayaan sii aadnay oo diyaaradda ka kacisay 4:20 laakiin anaga waxaan sii tagnay 11 o'clock si aan waqti u helno oo arintan hadee run tahay si aan ugu diyaar garowno laakiin markii aan meeshii aan tagnay wixii aan la kulanay wixii nala sheegay ayaan la kulanay sababtoo markaa meesha tagna waxaa nala sheegay in ay bixi karin British citizen oo ah ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska haddii aad ku dhalatay Muqdisho waa bixi kartaa laakiin ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska ma bixi karaan waxaa laga dadka waaweyn oo Soomaaliya ku dhasho sida anagoo kala baasaboor Ingiriis qaatay lama celinayo laakiin dadka yar ee halkan ku dhashay waa la celinayo waa dadka yar oo halka ku dhashay oo kaliya dadka waaweyn ee ku dhashay Soomaaliya meel walba ku dhashay Soomaaliya free ay ku tahay marka sidee oo la kulanteen caqabadahan maxaa sameeyay ku yiri marka uu horeysay markii aan rabnay inaan qaadano body passki iyo luggage ka rabnaa xareyno shaqadii ayaa waxaa la weydiiyay visa marka aan qaadimo waxaa visa loo baahan yahay waa maxay kaas waxaa loo baahan yahay ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska waa in ay haystaan visa that's why markaas ay weydiinay sababta ay ku timaaday waxay noo sharxeen gabadhii fadhisay meesha luggage-ka waxay anaga ma aha dhibka waxaa ka timaaday waraaq ay noo soo direen immigration-ka Soomaaliya in ilmaha ku dhashay waddanka Ingiriiska ah in ay soo qaataan ay soo dalbadaan visa ay ka soo dalbadaan waddanka that's why la dhahay waa u joojinay arintan in maanta bixin Turkish aysan raaci karin in visa na u baahan tahay in aad dalbatid visa ka bacdi aad soo noqotid asaas ku dushid sidaas ay ku yiraahdo airportka taageertiin horay wax digniin ah diyaaradda si baqay jarabtay soo sheegtay lacag badan ma lagu bixiyay digniin ah ama kala hadleen arrintan soo socoto ma lagu sheegay isla markaaba weydiiyay waxa dhahay goormo ayuu sharcigan soo baxay waxay ii sheegtay gabadha in uu sharcigan bilowday shalay oo axad maantana waa sinaan la taagan yahay shalay oo axad ayuu sharcigan bilowday waxaan u sheegay tigidhkan in la gooyay 4 bilood ka hor meeshan waxay la taagnaayeen si aan qiyaasayo 10 family oo ayagana rabin inay baxaan marka jinsiyadooda ma hay'ad ayagana kulligood waa Soomaali waxa meesha ku xayirma waa Soomaali 10 family oo ilmahooda watay ayagana meesha ku xayirnay oo loo diiday in uu luggage-kooda loo xareeyo body pass-ka loo siiyo meeshii baa xirmatay dadkii kale waa naga dambeeyaan saacadiina waa socotaa markaas waxay noqotay ku qasbanaadeen inay noogu wacaan ninkii haystay meesha ugu sarreeyay ninkii aan u yimaaday oo naga codsaday in uu la hadlo only hal qof oo keliya marka dadku ma qaylinayeen dadkii waa qaylinayeen aad iyo aad emotional baa jiray gabdho badan oo ilmahooda wataan aad axmadooda u kacsaneed oo emotional iyo wax walba isku jiray dad aad u xanaaqay dhalinyaro baa jirta aad u xanaaqday markaas wuxuu dhahay hal qof ayaa la hadlayaa kulligiina lama hadli karin aniga ayaa u doortay in aan isla hadalno waa israacnay waxaa isla tagnay xafiiskiisa wuxuuna ii sharxay sababta uu arrintan u soo rogay wuxuu dhahay aniga ma aha waxa soo rogay waa dowladda Soomaaliya waa dowladdii aad ka timaadeen problemkiina adinka u qorto waraaq emailkiisana isu siiba emailkaana igu soo dira
ممثلة ليبية عهد التاج شعبكم هذه المناسبة عقلي ترى بيحيو فخامة الرئيس وإلى دولة الرئيس وإلى الحكومة الانتقالية في الصومال وإلى كافة أشقاء الشعب الصومالي وريقين عسى يا شراب وانتماءاته على كرم الضيافة عمل صمي كل ذا والأمان الذي وفره للبعثة الليبية منذ وريقين عسى يا شراب القاهرة والعصيبة عمل صمي كل ذا وقد طلب رئيس الحكومة الصومالية محمد عبد الله فرماجو من الأمم المتحدة وبعض الدول المساعدة في إنجاز مواطنين نبديدك عرفتنا بعد ما ودك تسلكوا كجرو قبلنا طلب السفير وريقين عسى يا شراب ونتعهد بتوفير الحماية لهم. عمل صمي كل ذا طلبنا من الأمم المتحدة وإيطاليا ودول العربية المجاورة وريقين عسى يا مساعدة شراب المواطنين الصوماليين مقيمين في ليبيا. عمل صمي كل ذا